بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan hambaliyo u dirayaa dhammaan shacabka reer Somaliland meel ay joogaanba min bari ilaa galbeed ilaa bari. waxaan leeyahay ku ciidkan ciidkiisa bashbash iyo barwaaqo. waxaan kaloo insha Allah iyagana halka duco uga dirayaa dhammaan xujayta reer Somaliland iyo xujayta kale muslimiinta ah ee soo xajiyay. iyagana waxaan leeyahay Ilaahay idinka aqbalo. inta kadib waxaan kaloo iyana halka ugu darayaa qoliyaha kale ka rajo qaba insha Allah in Ilaahay ku simo sanadka dambe haddii Ilaahay yiraahdo. inta kadib waxaan jecelahay kelmad inaan ka iraahdo xagga nabadgelyada. maanta Somaliland waa nabadgelyo, wax shidaay kama jiraan, aad bay u fiican tahay, barwaaqaynu ku jiraa, bashbash baynu ku jiraa. waxaynu laakiin mar walba ogaanaynaa waxa sal u ah horumarkeena iyo taqaddamkeena iyo halkaynu higsanaynaba waa nabadgelyada weey. waa inaynu min daraf ilaa daraf ka shaqeynaa nabadgelyada. meelaha hoogaa uu ka jiray hoogaaga yari haddii Ilaahay yiraahdo iyagana waxaan leeyahay dhinaca sanaag waxaan leeyahay nabadgelyadan ka shaqeyno. taas ayaa danteenu ku jirtaa. markay nabadgelyadaas ayay Somaliland halka ku soo gaadhay. taa lama jeeranayo caalamku wada eegayo maanta oo la yaaban yahay sida Somaliland heerka ku gaadhay iyadoo ictiraaf caalami ah haysan. waxa ay ku gaadhay waa nabadgelyada weey. waxba waxa salo aan nabadgelyadan ka shaqeyno gacmaha aan isqabsano, aan danteena u jeensano, aan horumar u jeensano, aan xagga taqaddumka u dhaqaaqo. haddii Ilaahay yiraahdo taas weeye tan ugu muhiimsan xaggeena. xagga kale Somaliland mar walba waxay jeceshahay oo diyaar u tahay oo ku caan baxday inay nabadgelyo iyo xiriir wanaagsan kula noolaato dawladaha geeska mid ay u yihiin. markasta waxay ka fikiraysaa waxa weeye sidii ay dawladaha geeska Afrika iyo kuwa kale caalamkaba haddii Ilaahay nabadgelyo ay ugu wada noolaan lahayd. iyagana waxaan ka rajaynayaa qoliyaha dariska nahay ee reer Soomaaliya iyaguna ay taageertaan, taateeda gartaan, fahmaan, haddii Ilaahay ay gartaan intoodu ku jirto iyagoo nabadgelyo hela teenna ay noo daayaan oo ay gartaan inaynu noqono dawlado darisa oo nabadgelyo ku wada nool oo mid walba danteeda ka shaqeysato. aad iyo aad baad mahadsantihiin. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وسلامتين أولا تلفزيون قرن كجمهورية سوماليلاند وما هنقي فرصة ويسيي ما ده واحد شوفنا معلوم وين وقيمة وين ولا عالم الإسلام جودهان ومالنتي عيد الأضحى واحد شوفنا مقالة دي هرجيسة عاصمة جمهورية سوماليلاند تاريخ وكونيا في بقوليها فرطا كتاريخ الإسلام بشي أن عرفه وي waxaan halkan doonayaa maanta inaan ka salaamo guud ahaan shacbiga Somaliland guud iyo dibadba. waxaan si gaar ah u salaamayaa marka koowaad baxda dhaqanka Somaliland gudaha iyo dibaddaba. waxaan salaan qaali ah halkan uga dirayaa. waxa kale oo aan salaamayaa culimadiinka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan salaamayaa madaxda qaranka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ugu horeeyaan xisbiyada qaranka, saddexda xisbi qaran, golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland, golaha guurtida, dhalinyarada, dhammaan qaybaha bulshada reer Somaliland baan salaamayaa. waxa kale oo salaan qaali halkan uga dirayaa bahda warbaahinta ee runtii arin muhiim ah haysa, hawl muhiim ah qaranka u haysa oo fariinteedan gudbinaysa. waxa kale oo aan halkan ka salaamayaa qurbajoogka reer Somaliland oo aan leeyahay bisheeda ku gaadha barwaaqo iyo bashbash. waxa kale oo halkan ka salaamayaa caalamul islaam oo dhan, adduunyada shanta qaaradood ee dunida ummadda ku kala filaqsan. waxaan leeyahay sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash dalkeena oo horumar inaga oo muwaafaqadeena Ilaahay taam u ka yeelo nabadda alla inoo siyaadiyo. caalamul islaam oo dhan Ilaahay qulubtooda inuu soo jeediyo meel kasta oo dab ka baxay dabkaasi oo ka baxtiyo
fadliga bisha ciidda ee maanta ciidda ladxa ayaan ilaahay nooga baryaya inuu ducadaasi noo aqbalo qallaydeyntaas uu soo koobiyaara labaad iyo mar saddexaadna waxaan salaamaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo fursadda siiyay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عيد مبارك وأنت كل عام وأنتم بخير waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaanteed meel ay joogtoba gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xaasaskooda madaxweyne walba xajka sanadkan ku maqan yahay ilaahay ka soo aqbalo annagana ducada ha noo soo aqbalo waxaan kaloo salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan kuwa jiida hore kuwa difaaca ku jira gaar ahaan waxaan salaamayaa ciidanka badda oo aan ka tirsanahay saraakiil xigeenka taliyaha guud admiraal maxamed xuseen faarax xiirane xaaskiisa luul maxamed iyo caruurtiisa waxaan salaamayaa golayaasha qaranka waxaan salaamayaa walaaladay xaaskayga saare axmed jaamac caruurtayda ninka ku qortay nimco ugu weyn tahay waxaan salaamayaa xaaskayga saare axmed jaamac iyo walaaladay oo berbera hargeysa burco intaba jooga sheekh caafimaad iyo cimrireer baan rajaynayaa sanadkiisa inay ku gaadhaan ilaahay annagana noo aqbalo ducada iyo sanadkaa wanaagsan maalintaa wanaagsan tiifiga qaranka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku bilaabayaa magacayga waa Fadxi Cali Axmed marka hore dhammaan waxaan salaamayaa mujtamaca islaamka meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bil khayr ilaahay sanadkiisa aynu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash intaa kadib waxaan si gaar ah u salaamayaa marka u horeysa hooyaday macaan xabiiba cabdilaahi guuleed sidoo kale waxaan salaamayaa iyadana hooyaday faadima cabdisamed waxa kaloo aan salaamayaa islaamahayga waxaan salaamayaa caruurtayda oo kala ah nimca ayaan fadxi nimca ayaan idris cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdishakuur cabdulfataax warde iyo hibo waxaan leeyahay dhammaan aabba ilaahay sanadkiisa inuu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxa kaloo aan salaamayaa walaalahay habboon muuse cali iido muuse cali waxaan salaamayaa xafsa waxaan salaamayaa leyla waxaan salaamayaa deeqa waxaan salaamayaa daahir waxaan salaamayaa maxamed muuse waxaan salaamayaa dhammaan ilma cabdalle axmed xaaji cabdilaahi sida ismahaan axmed cabdalle warde axmed cabdalle axmed cabdalle axmed ismahaan axmed cabdalle saan hore u sheegay hibo axmed cabdalle iyo aadan axmed cabdalle iyo maxamed axmed cabdalle waxaan salaamayaa adeer cabdalle axmed xaaji cabdilaahi waxaan salaamayaa dhammaan reer xaaji cabdilaahi maxamed aadan meel kastoo ay joogaan waxaan salaamayaa walaashay xamda aadan ciise waxaan salaamayaa walaashay saare axmed waxaan salaamayaa dhammaan ilma aadan ciise oo dhan waxaan salaamayaa reer ciise maxamed meel kastoo ay joogaan ilaahay idamkii waxaan dhammaan u rajaynayaa dadka caafimaad cimri dherer camal saalixa cibaado joogtaa iyo inuu ilaahay sanadkiisa ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash waxaan salaamayaa oo aan isna si gaar ah u salaamayaa TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan salaamayaa nooc kasta ay yihiin iyo xaasaskooda waa kuwa heeganka u ah iyo habeen difaaca qaranka iyo nabadgelyada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ciidamada qaranka iyo xaasaskooda ugu dambeyn waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka oo xajka ku maqan iyo madaxda qaranka oo madaxweynaha ku horeeyo dhammaan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bil khayr wa billahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد عين معين فتح علي وحنكم في الله بسلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحى السلام يا مجتمع السلام كمل البيت جوزك تشوفان سيدك وحى السلام يا أبا هاي هو يدي يدما ولا لا هاي هو يوينك يدوينك أبتياشي أو ياشي يسيدك لأيدي معاه حبيبة سيدك وحى السلام يا أيدي عند مل البيت جوزك تشوفته لما تنوي السلام يسيدك وحى السلام يا مدحونا جمهورية الصومال مدن موسى فيها هاي عبد الرزاق فتح علي وهل تروح حتى السلام هو يدي يا باي يا ولا لدي
iyo iyadii iyo iyaashii iyo muuse iyo galta iyo muuse biixi iyo aabbahay iyo macallimiinta ayta salaamayaan. السلام عليكم أنا مقعد ويدرس فتح علي وحاجة كسلام يا ويدا يا أباي يا ولالضي يا مدحويناك مصبيحي يا والدكي يا معلمين هذا يا حن سلام يا ولالضي مقعد كلهين معيان يا عبد الرحمن عبد الرزاق يا عبد الشكور يا وردي هبة يا عبد الفتاح يا ويدا يوم مقعد طاي يا دمان هويدي مقعد طاي نصر حسن حاجي يا أباي مقعد يا فتحي علي أحمد رعيد يا عبد الرحمن فتحي علي وحنا نلقى السلام يا هويدا يا أباي أي شيء معلومات ولا لغي وحنا كسلام يا مريد سومالان وحنا كسلام يا ولا لغي وحنا كسلام يا هويدا يا أباي وحنا كسلام يا أديرضي أي شيء والدك يجي معلمات السلام. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. magacaygu waa Mr. Maxamed Cali waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda ehelada qaraabada dhammaan asxaabtan wada shaqeyno iyo saaxiibkay Maxamed Bashiir Nuur iyo intaan wada shaqeyno iyo dhammaan eheladayda hooyadii iyo aabahay halka iyo dhammaan waxaan ka leeyahay kulli caam antum bi khayr taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. magacaygu Maxamed Bashiir Nuur waxaan ka salaamayaa hooyadii iyo aabahay Bashiir Nuur iyo hooyada cibaadada Yuusuf iyo walaaladii dhammaan Nimco Bashiir Cabdi Bashiir Cabdullaahi Bashiir Xasan Bashiir Ayaanla Bashiir iyo Xaliimo Bashiir iyo xaasaygu gubada Xamiinis dhammaan waxaan kala salaamayaa asxaabtayda intaan wada shaqeynay intaan wada shaqeynay ugu horeeyo Mustafa Maxamed Cali waxaan kala salaamayaa ciidamada qaranka walaalayaasha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo joogta gaar ahaan Soomaaliland.